السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي في الله إلى برتو إلى فائديست عاو مقعك من مقعد إلهي سبحانه وتعالى عاو حين أبلنصنها إن انقاضنا أريغا العظيم قرآنك وحو أما لقد عربية مركا لا معنى أريغا العظيم وحو نقونيا شيغا مركا وينادو شيغا مركا وكرنغلو وبلارتو shanigiisa iyo markaa qiyaastiisiina la gaari waayo marka shayga marka uu kor noqdo oo markaa uu ballaarto oo markaa shanigiisa iyo qox lagu qiyaaso la garan waayo marka ilaahay subxaanahu watacaala intee in la eg buu ereyga alcadiim qur-aanka ku sheegay alcadiim qur-aanka waxaa lagu xusay ama lagu sheegay 9 jeer baa lagu sheegay 9 jeer waxaan kasoo qaadanaynaa meelo ka mid ah fi suurati albaqara آية 255 إلهي وحكولي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي سبحانه وتعالى متكود على أي كو أذكتها عرك يدلك إلى رنتو معها إلهي وانت وكوين هاي هذا في موضع آخر ملكا إلهي وحكولي في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في سورة الواقع إلهي سبحانه وتعالى وحكولي هاي فسبح باسم ربك العظيم حتى سدح ذا ميلود ayaa kasoo qaadanaya qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaalana 3 meelood ayuu magaciisa ku xusay ilaahay subxaanahu watacaala 3 meelood ayuu markaa magaciisa ku xusay alcadiim runtii luqadda carabiga markaynu ku micnayna wuxuu noqday shay kor noqday ballaartay waxaan lagu qiyaasana la garan waayey macnaha shay shanigiisa la qiyaasi waayey ama markaa weynidiisa iyo markaa dhirirkiisa iyo markaa baaxadiisa la gooyin waaye marka ama la gaari waaye marka waxaad ka warantaa nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga oo tilmaamaya ilaahay subxaanahu watacaala weynidiisa ayaa wuxuu yiri fi xadiis abi dhar radiyallahu anhu ma samaawaatu sab'u fi lkursiyi illa ka xalqatin biardi falaatin وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة النبي صلى الله عليه وسلم وحليه سموين كتضبضاء مركا كرسيga إلهي سبحانه وتعالى الله إيغو وحي نقانيا بر لغطوري دول باحد وينو مركا لمدقانا بل برتاسي دول كالمدقانك إباحد وين انتهي إن لأبني مركا كالنقانيسا مركا والأركيسا إلهي سبحانه وتعالى كرسيgiisa iyo marka cirka la isku eego cirkiya wuxuu noqonayaa birta dhulka saxaraha lagu tuuray ee marka dhulka adaba birta dhul intee la eg ama baaxad intee la eg ama qiyaas intee la eg bay dhulka ka qaadanaysaa waxba weeyaan marka birta ama la xiranaya ama dumarka xirtaan marka dhulka lagu tuuro waxay noqonayso qiyaasteeda waan arkaynaa marka dhul lama degaana lagu tuuro wax yar oo ilma aragtay marka noqonaysa marka cirka iyo dhulkana waxa shayga yar ee ilma aragtada ah ayay noqonayaan marka kursiga ilaahay subxaanahu watacaala loo eego bal waxaad ka warantaan marka haddii cirkiiba intaa noqday bal annaga maanta isqaabqaabayna iskibirsiinayno salaada ilaahayna diidayna ilaahayna subxaanahu watacaala ku caasiyayno bal xaalkeena ka warama qiyaasa weynida ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay cadiimun weeye fii sha'nih ilaahay subxaanahu watacaala waa alla weyn wax ilaahay subxaanahu watacaala weynadiisa goyn kara ama ilaahay subxaanahu watacaala weynadiisa markaa sawiran kara ma jirto caqliga ibni aadankana xad uma laha oo xaq kuma laha inuu ilaahay wax ku tilmaamo ilaahay subxaanahu watacaala wax la arkay oo wax lamida markaa ilaahay subxaanahu watacaala la arkay ma aha ilaahay subxaanahu watacaala waa ilaahay subxaanahu watacaala wax lamida ma jiraan ilaahay subxaanahu watacaala wuu weyn yahay ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan u weyneynaynaa siduu isagana faray marka kuma xadgudbayno oo kuma tilmaamayno wax kale magacyadiisa wanaagsan marka asmaadiisa wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala sida ay tahay oo nabiga noogu tafsiiriyay ama noogu micneeyay ayaan u qaadanaynaa marka alcadiim haddaba shaniga ilaahay subxaanahu watacaala haddaba waa cadiimun ilaahay waa alla weyn wax loo barbar dhigo ama wax lagu qiyaaso ama wax lagu tilmaamo ma jiraan ilaahay subxaanahu watacaala nabiga sala allahu calayhi wasalam mar ibni cabaas uu kursigaa weydiinayay kursiga ilaahay subxaanahu wataala kursigaa halkaa lagu tilmaamay ayuu ibni cabaas weydiiyey nabiga markaasaa maxaa lagu yiri waxaa lagu yiri ibni cabaasow kursiga aynu sheegaynaba oo ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay waa meeshuu ilaahay lagu hadhiganayay
oo bartuu ilaahay subxaanahu watacaala laguha dhiganaya. haddaba kursiga ilaahay uu laguha dhigto ayaa cirka marka loo eego cirkiyaa wuxuu noqonayaa bir yar, bal adigaaga iskibrinaya ee salaad la-aanta ah, sool la-aanta ah, macaasida ku dhex jira, amarka ilaahay diidaya, bal xaalkaaga ka waran. marka ilaahay agtiisa maxaad ka noqonaysaa wey? yaa allah, allahuma yasirna, ilaahay noo fududay arrinta noo sahal. haddaba ilaahay subxaanahu watacaala marka ilaahay subxaanahu watacaala kursigiisa intaa la eegi, bal waxaad sawirataa carshiga ilaahayna intee la egyahay, carshiga ilaahay intee la egyahay, carshiga ilaahay intee la egyahay, wallahi ma qiyaasi karayno. haddaba carshiga ilaahay, bal carshiga ilaahay meesha uu la egyahay ma garanayne, bal qofka carshigaa ka sara maray ee carshigaa iskale ka or allah, ilaahay carshigiisa ka warama. yaa allah, ilaahay noo naxariiso. ereyga alcadiim haddaba markaad akrinayso weynida ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu sawirmato. ilaahay subxaanahu watacaala kursigiisa ayaa cir iyo dhulba ka weyn. maxaad adiga xaalkaaga muxuu yahay maanta? ilaahay xaalkaaga marka alla loo eego muxuu noqonayaa adiga sida aad tahay? haddaba maanta waxaan maqlaynaa hebel xooluu leeyahay, hebel waa qof weyn, bulshada dhexdeeda magac ku leh, sumcad ku leh, waa qof ku weyn dadka agtooda. bal ilaahaygii weynaana ka waran. qofkaasi waxaa laga yaabaa xaalad markaa jirta inuu ku weynaaday, laakiin ilaahay xaaladna kuma weynaan, waqtina ma weynaan, ilaahay markiisa hore weynaaba. laakiin ibni aadanka qaar baa xoolo magac ku yeesho ku weynaada, qaar baa maxay ahayd mansab iyo xil loo dhiibay ku weynaada, qaar baa xoolo ku weynaada, qaar baa maxay ahayd xil loo dhiibay ku weynaada. marka weynidaa ilaahay subxaana, qaar baa cilmi ku weynaada, marka qaar baa maxay ahayd shaqo ku weynaada. marka yaa shirkada iyo kambaniya uu leeyahay baa loogu magac daray oo la leeyahay hebel waa qof weyn, maa sha allah. marka allihii allah ka weyn, ogaada shay kasta ilaahay baa ka weyn. ilaahayna weynadiisa, haddaba haddaan rabna inaan weynayno ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan ku weynaynaynaa biijtinaabi awaamirihi, biimtithaali awaamirihi waijtinaabi nawaahihi. ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisa ayaan u hogaansamaynaa oo qaadanaynaa oo aan samaynaynaa. wax allaale wuxuu noo diidayna waan ka haraynaa. ilaahay waa weyn yahay, weynidiisa ilaahay subxaanahu watacaala weyney, oo waxaad ku weynaysaa in amarkiisa aad fuliso, wuxuu diidayna aad ka harto. baaraka allahu fiikum. sheergareeya, walaaladiin la wadaaga, khayrkan la wadaaga walaaladiin. magaca alcadiim caawa waad barateen waxa uu yahay, fadlan ka faa'iidaysta, sheergareeya. baaraka allahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.